halkan waxaanu ka soo qayb gallay xaflad hablaha muslimaadkii u soo diyaariyeen ragga mujaahidiinta ee walaalahooda ee sufuufta ku jira oo aad u fara badan oo aad u qiimo badan alxamdulillaah rabbil caalamiin allah waxaanu u weydiinaynaa inuu inamadana ku anfaco hablahana ajarkooda uu siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala u laban laabo alaab aad iyo aad u fara badan oo noocba nooc isugu jirto aad u qiimo badan waxaanu u sheegaynaa dadka cadowga ilaahaya waxa weeye annagu waxaanu u taagannahay dulmi uma taagnina ilaahay kitaabkiisa iyo tawxiidka iyo mujaahidiinta ayaanu u taagannahay xoog iyo xoolana waa la dhinac taagannahay naf iyo maalna biidnillaahi albaari meel kale aadi mayno wixii aan allah kitaabkiisa munasalka iyo sunnada rasuulka ku salaysnayn annaga agtayda waxba kama aha mana danayno mana eegno waxaanuna uga soo baxnay oo waddankii uga nimi in ilaahay kitaabkiisu kor noqdo wallaahi baan ku dhaartee haddii nala laayo iyo haddii nala daayo iyo haddii kale inaanan kala jecel xusnayayn ayaanu nahay haddaannu dhimannana allah baanu ka rajaynaynaa janno firdowsa aclaa ilaahay ou naga aqbal haddaannu loonnahayna kitaabka ilaahay ee dhirta hoosteeda iyo lagu kaajayo gaalada la siinayo iyo maxay tahay kalluunkayga macdantayada gaaladu guranayso iyo gabdhaha muslimaadka ee jeelalka ku xidhan iyo inamadayada ku xidhan ayaannu u taagannahay ilaa aannu qodis ka xirayno kitaabka ilaahay xukunnoona isma taagayno gaalaha loo sheego naagaha murtadaha waxaan leeyahay iyo odayada sirqooyinka ee baqbaqlahow allaahiin u toobadkeena allaahiin u toobadkeena haddaad diiddaan sow maaha mindi bay naga dhexaysa waxaan walaalahay u dardaarmayaa ragga sufuufta inay sabraan inay dhaxanta ku sabraan inay xabadda ku sabraan inaannu macooda iyo garabkooda naf iyo maalba la nahay oo aanaan xagna uga jeesanayn intaasaan waana salaamaya aad iyo aad baan u salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nimcadan ilaahay subxaana wa tacaala u namankansiiyey maanta horteenna taalla waa mid ilaahay subxaana wa tacaala uu namankansiiyey ma ahan midaan xoog iyo xeel ku keennay gabdhaha muslimaadka ee soo aruuriyeyna ilaahay subxaana wa tacaala ajir xasanaad badan allah ka siiyo intii u istaagtay intii qabatay ilaahay subxaana wa tacaala maalinka qiyaama allaha ugu shafeeco oo abaalmarinteeda allaha siiyo maalinta la qaawanya ilaahay baa ku mahadsan oo meesha isugu ka keen anagoo muslimiin ah ilaahay baan u mahad celinayaa wiilasheen iyo walaalaheen waxaan la garab taaganahay heeliyo hooba wuxuu ilaahay gacanteena galiyay waan la taaganahay diyaar baan u nahay gaala waxaan diyaar u nahay inaan habeenkina habaarno maalintana aan shaqayno maartay ilaahay dartii aan u shaqayno insha Allah wax alla wuxuu ilaahay gacanteena soo galiyay inaan wiilasheen ku taageerno waxaan u sheegayaa hooyooyinkeena gabdhaheena wiilasheena aabayaasheen inaan idin dhaarsana oo anigaas cimrigaas la ogo baday iyo habar iyo gaal wixii isha aan saaro gaal ah ilaahay idanka anigu waan ku filahayba hal xabo gaal hadaan arko ama habara ama odaya anagoo islaanoo waayeelaba ku filan waxaananu ku soconnaa annagu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisu inay kor noqoto lacib iyo lahwi iyo magac raadisna uma soconno lilaahi baan u soconaa ilaahay dartii subxaana wa tacaala waxa weeyaan arrinkayaguna waxa weeyaan ixdal xusneeyeyn imaa in adduunka lagu xukumo kitaabka qur'aanka iyo raayada tawxiidkuna ay wada gaadho waa imaa inaannu dhulka hoos marno oon shahiidno oo ilaahay subxaana wa tacaala shahaado nagu arsaqo marka waxaan u sheegaynaa gaalada wallaahi bilaahi tallaahi iska daa raggayaga dumarkaygu way dhaarsan yihiin xamlada a soo qaadeenna cadhaannu ka qaadnay waxa weeyaan dad hurday baa baraarugay xataa iska daa dadkii hore u baraarugsanaa laakiin dad cusub baa baraarugay oon waxba ogayn waxaana weeyaan wixii iyo kaartadii aa wadateen way idinku qallibantay qabaa'iladii soomaaliyeed way kaceen dumarkii muslimiintaha way kaceen maanta lama kala harayo jihaadkan waa kii laydinkaga xoraynaya ardu soomaal insha allah biidnillaah waxaanad ogaataan ina ku khasaarteen kuna khasaari doontaan insha allahu biidnillaah waxaanu rumaysannahay annagu allah subxaana wa tacaala xujo cad uuna siiyey oo kitaabka munasalka ee muxkamka ah li'anna maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala dad muslimiino ayuu naga dhigay ilaahay baana subxaana wa tacaala na soo waafajiyo na fahansiiyey iyo haddaad diyaarada soo kicisaan iyo haddaad ciidamo isu keentaan midna wallahina hamigayaga iyo maxay haytay higsigayaga nagama hor joogsanaysaan ogaada laakiin allah subxaanahu wa tacaala dagaal kastoo a soo qaadaan iyo xamlo kastoo a soo qaadaan ina ku hungoobaysaan oo maxay tahay a ku jabaysaan oo hasiime iyo dhabarjab idinku noqonayso allah subxaana wa tacaala ayaa maxay haytay taa noo caddeeyey
ragga mujaahidiinta ee sufuufta ku jirana waxaan u sheegnaa inay ka dambeeyaan dumar garab taagan oo maxay ahayd gabadh walba inankeedii iyo ninkeedii iyo waxaan ku uri walaalkeed iyo ehelkeedii tii aanay ku jirin xataa u tashkiilinayso ay ugu yeedhayso marka waxaanu leenahay sabr walaalayaal guushina way dhowdahay insha Allah biidnillah Soomaaliya lagu xoreeyay way dhowdahay waana nasriga أنا مسلمة رمز الهدى والمكرمة أنا أم أشبال العرين وأم أسد الملحمة أنا قلعة لم تهدمي أنا أمة لم تهزمي وأنا العقيدة في دمي أنا أم جيل مسلمي